الله عليكم في دمو wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad iyo waliba suuqa kala iibsiga waxyaabo xiiso badan baan ku eegi doonaa isla markaana kaga hadli doonaa haddii aad ku cusubta daawade fadlan subscribe noo saar si share gala saaxiibadina la wadaaga dhamaantiinba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantihiin si aad ugu xirantihiin baarteena aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta Manchester United Atletico waxay doonayaan macallin baa leeyahay macalinkaasi Simeone Inzaghi Corriere dello Sport ayaa warka qoraysa Corriere dello Sport waxay leedahay adiga kubadda cagta Manchester waliba Atletico waxaa ka maqan macallin waxay u tageen Simeone Inzaghi su'aalo bay weydiiyeen baa leedahay isla markaana waxay wax ka weydiiyeen xilaareedka dambe haddii suuqa laga heli karayo macnaha xilaareedka dambe niyo ma laga heli karaa suuq ayaa su'aalahaas bal la weydiiyey niyo haddii lagu heli karo waan ku rabnaa iyo waliba waxyaabo sidaas baa la isdhaafsaday haddaba Manchester United waxay ku dhiban tahay macalinka Rangnick waxay doonayaan macallin kale sidoo kale Atletico Simeone bay markaasi kala fogaadeen oo waxa lagu leeyahay kooxdu xidiguhu waxay noqdeen kuwa macallinkii waliba marka muddo soo joogay isku daalay waa la kala nasiinaya baa leeyahay Corriere dello Sport marka waxay leedahay ninkii Simone Inzaghi ayaa hadda wadada lagala furaya isla markaa ninka baa la doonaya waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Barcelona waxaa la tilmaamaya in Dion iyo waliba markaasi ninkii Depay labaduba ay sii joogi karayaan macnaha suuqan isku dayaba jiray isla markaana January hadda kooxdu waxay doonaysaa in la adkeeyo xidigo dhowr baa markaa laga rabaa in suuqa markaa ay ka soo qaadato kuwa kalena ay dirto maalmihii la soo dhaaf waxaa jiray warar kala duwan oo laga hadlay ama xidigahan markaa quseeyay iyagu inay ka baxayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la sheegay Barcelona waxaa la tilmaamayaa hadda inay ka shaqeynayso hadda xidigo dhowr isla markaana uu ka mid yahay ninkii Denis Zakaria Frank Cassie iyo waliba markaa dambeed Gaia iyo rag kale hadda waxaa leeyahay Dion iyo waliba Depay iyaguna ma bixi doonaan January laakiin haday baxayaan xilaareedka bay noqon doontaa baa leeyahay macnaha nadiga xilaareedka inay dirto ayaa suuragal bedelkeeda waqtiga hadda inay dirto ayaa shaki weyn la gelinaya marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Belgrano waxa la leeyahay ninkii Xavi go'aankaas buu soo gaaraya waan arki doonaa haddii markaas iyadu Belgrano iyadu raggan safkooda ay ku seenaysaa ama xitaa January inta lagu guda jiro iyadu ay diri doonto baa leeyahay dabcan City hal caqabad ba haysata baa leeyahay wiilka Haaland City horta iyadu inay awoodo dhaqaale ahaan dood fara badan kama taagna naadiga hadda markaasi la tartamaysa inay tahay naadiyo Camaliqa oo Madrid iyo Barca kuwa kale yihiin dood kama taagna laakiin caqabada ugu weyn Pep Guardiola ee haysata waxay tahay laacibkan isagu inuusan doonayn baa leeyahay marka la eego isbabar dhigida naadida Real Madrid iyo Man City iyo waliba wuxuu ka doorbidayaa baa leeyahay wiilka markaasi Haaland nadiga Madrid inuu ku biiro bedelkeeda nadiga kubadda cagta Man City sababtoo ah Man City wuxuu ka helayaa baa leeyahay dhaqaale fara badan laakiin haddana caanimada iyo waliba doorka Real Madrid uu ka helayo kama helayo baa leeyahay ninkan saas buu isagu daneynayaa inkastoo hadda ay adag tahay wax walba marka Madrid ay haysato hadda ay haysato laakiin wad ogtahay magac iyo waliba taageerayaal xajmiga waa marka Santiago Bernabeu markay ay soo fariistaan 90000 iyo waliba marka isma bardhigi karaysid ka taageer ahaan baa laga hadlayaa iyo waliba masaafada dhankaas laakiin xidigaha maanta jooga Madrid iyo waliba City maanta waxa fiican dood kama taagna City oo ka diyaarsan marka la eego maanta xidigaha ahaan marka la eego laakiin taariikh ahaan iyo jamaahir baa laga hadlayaa marka laacibka saameyn ku yeelanaysa nadiga kubadda cagta ee Juventus waxay raadinaysaa baa leeyahay bedelka xidiga Kiisa xalatooda warkeena waxa ku jirta in Martial ay kala xaajoonayaan Manchester United markaan ay doonayaan inay qaataan Martial wuxuu ka mid yahay xidigo dhowr oo suuqa markaas laga doonayo Juventusna markaas ay kala xaajooto dabcan naadi kasta waxay u tagaysaa koox waxay ka doonaysaa xidig laakiin xidig markay la xaajoodaan waxay raadinayaan xidig kale oo bedelkiisa macnaha way isku balance gareynayaan raqiis ahaan iyo waliba qaalisan iyo waxyaabo badan baa laga hadlayaa hadda waxa lagu leeyahay Juventus Kiisa bedelkiisa waxay u arkaan ninkii marka Aubameyang waxa uu ka mid yahay ragga markaasi suurtagalka ah iyagu in safka marka Juventus inay maraan iyadoo la xaajoonayna naadiga kale marka xidigna Martial iskuma koobiyaan kuwan way la xaajoonayaan kuwan way la xaajoonayaan midka marka u fiican way qaadan doonaan marka wiilka waraadeerka naadiga kubadda cagta Gunners uu isagu soo qabanaya baa leeyahay ninkii Aubameyang naadiga markaas waan arki doonaa Manchester City waxa lagu leeyahay war weyn baan kaga hayaa kulaha Man City marka Real Madrid iyadu Haaland maxay ugu dhibtaaba raadeerkan wuxuu soo galay leedahay caaw hadaan nahay Man City wiilkii Vinicius sidaas waxa ku waramaysa shabakada El National waxa xiganaysa shabakada caanka ee Mirror ee wadanka Britain maadaama naadiga Ingiriiska ka dhisan tahay reer Ingiriis oo jaraa'idkaasi wuu xiganaya laakiin warka waxa asalkiisa qoray shabakada El National ee wadankaasi Spain laga leeyahay waxa leedahay naadigaas hadda waxay daraasaynaysaa dariiqada ay kula tacaamuli karayso heshiiska loogu tagayo kooxda Malaki isla markaan la doonay wiilkan laga soo qaado waliba xitaa waxay u arkaan baa leeyahay bedelka Ferran Torres dhaqaale fara badan bay u diyaarinayaan sidii wiilkan iyagu u qaadan lahaayeen 80 milyan 90 milyan ay dalab markaas ka fakareen iyagu inay gudbiyaan isla markaan safkooda inay geeyaan macnaha Los Blancos wiilkaas ma Vinicius baa laga taaban kariyaa
Vinicius kuwaas hadda beryahan kuwa soo dhiibayo ma eko laakiin waan arki doonaa. United waxaa la tilmaamayaa in ay la xaajoon doonaan kooxda kubadda cagta ee Napoli. Naadiga ka dhisan koonfurta waddanka Talyaaniga ayaa suurtagal ah la yiri in iyagu ay miiska u saarto xogaa dhaqaalaha oo waliba xitaa Fabian Ruiz iyagu ay ka soo qaataan. Fabian Ruiz Madrid iyo waliba xitaa naadiga kale baa daneynaya ogsoonow aad bayna markaas u daneysay naadigaasi markaa Barcelona oo ay rabeen waqtigii Kiki Setien ee Kenano maadaama isagu uu soo tababaray ninkan Kiki Setien markii uu imanay wala aad baa loo amaanay. wala dunidan iyadu waxa waaye qofba meel buu ku fiican yahay isagu qof wada fiican ma jiro laakiin haddana de Xavi oo kale hadda waa la amanaya waxbuu suuragal inay u toosaan waxna u toosin marka waa iska sidaas dunidu haddaba Man United marka wiilkaasi soo tababari jiray Kiki Setien ay doonaysaa inay keensato Fabian Ruiz Liverpool baa hore loola xiriiriyay ogsoono bedelka Paul Pogba ay u arkaan isla markaana safkood inay geeyaan ayaaba suurtagal maalmaha soo aadana isbedelka ayaa dhici karaya waa lagu leeyahay Manchester United lagu sameyn kariyaa wararkii ugu dambeeyay sidaas bay iyagu tilmaamayaan. Naadiga kubadda cagta Atletico Madrid waxay doonaysaa iyadu inay qaadato waliya Diego Dalot wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Diego Dalot isagu inuu isu arkayo in safka kooxda kubadda cagta Manchester United muhiim u yahay waqtiga Ralf laakiin 6 bil kadib waxa dhici doona lama garanayo. Solskjaer oo kale ku imaanay ama Simeone oo kale markaas uu difaacinta ku xirto wuxuu leeyahay hala difaacdo ninka aniga waa ciyaaray buu leeyahay Wan-Bissaka marka ninkan waa qiimeyn doona ka hor inta uusan go'aan qaadano laakiin Atletico waa diidaysa Atletico Diego Dalot laba habeen hata uma ciyaari karayo sababtoo ah Wan-Bissaka hadii la dhihi lahaa hawa suuragal bay ahaan lahayd maxay yeelay ninka waa maba soo baxayaba banaanka weerar in laga rabo iyadaaba ka warqab waxa isagu kama warqab waxa isagu waa difaacanaya hadii uu ku yiraahdo maba soo xasuusanayaba banaanka waxa noqonaya mid xitaa Janis inta la eg isagu aan siinay marka la eego weerarka inta badan difaacayo marka soo ku fiican yahay si kasta aataba wiilka hadda markaas Diego Dalot naadiga Atletico baa xiisanaysa sida caawa aas ee wadanka Spain iyadoo ay ku waramayso sidaas baa la leeyahay. naadiga kubadda cagta Liverpool iyo mashaakilkeeda heshiiska Salah baan ka hadli doonaa iyadoo dhowr umuur oo kale aan eegi doono. naadiga kubadda cagta markaas Liverpool waxa leeyahay waxa suurtagal Salah iyadoo markaa in meel u yeesho macnaha Salah ilaa hadda mustaqbalkiisa managa rag fara badan oo Liverpool u soo ciyaarana waxay ku talinayaan heshiiskan in la dadajiyo waqtiga ugu dhow heshiiska Liverpool inay iska go'aamiso markaana heshiiska meel u dhigto laakiin waxa la yiri marba hadii uu sii socdo marba haday noqoto in marka heshiiska dib u dhaco ninka wuxuu ku fakarayaa gibahan inuu baxo ninka wuxuu ku fakarayaa gibahan kooxda inuu ka tago ninka wuxuu heli kariyaa dalabaad ka badan ka hadda Liverpool maanta diyaarinayso in waqti hore la heshiisaan laacibkan markaasi kooxda in ka doonaysa aad ka hortagtaan heshiiskiisa aad siisaan wakiilkiisa Rami Abbas aad qancisaan kadibna marka aad sii haysataan waliba xitaa waxa leeyahay naadiga kubadda cagta Liverpool way ku dhibaatoon doontaa xilciyaareedka dambe mar hadii la gaaro sababtoo laacibku 6 bil baa u dhinaanaysa marba hadii Janaayo hadda soo aan ku jirno uu isagu gaaro waliba xaq u lahaanaya naadigu doonin la xaajoodo marka wax walba dhici karaya. Barcelona waxay doonaysaa inay la soo wareegto baa leeyahay ninkii ahaa Nicolas Sule Bayern buu ka tirsan yahay waa difaac wada aragtano ninka xoogan oo dheer oo birta oo kala soo mid arag ninka dhaawac baa diloodayo xilciyaareedkan markaasi waa ka tagi doona kooxda kubadda cagta Bayern sababtoo ah ninka in la hadda heshiis lama siinin sidoo kale sababta Bayern heshiiska u sii weeday maxay tahay sidaas u xoogan yahay shub u yahay ninkan dhaawacyadu markaas soo maray dhaawacyadaas waxay keeneen marka mustawi saameyn ay ku yeeshaan isla markaana wax badan ninka uu hormari lahaa ma uusan hormarin waa waxa keenay markaas in wax la iska weydiiyo ninkan tayadiisa isla markaana naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Barcelona baa hadda doonaysa Nicolas Sule hatta naadiga Newcastle baa la xiriirinaya wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamay marka ninkan dhaawacyadiisa ugu dambeeyay sababoo Bayern inay albaabada ka xirato markaan heshiis siin heshiiska uu doonayo Bayern hadii lacag jaban ay ahaan lahayd suuragal bay ahayd laakiin lacagaha uu dalbaday xogaa lacag khayaali bay u noqdeen maamulka u arkeen ama xitaa inuu soo qalmin ayaa loo arkay waxa keenay markii lagu fakar ninkan isagu banaanka in la geeyo kooxda kubadda cagta ee markaas Barcelona ayaa xiisanaysa Sule baa leeyahay naadiga kubadda cagta Barcelona sidoo kale waxay xiisanaysaa Gosgoski baan galina Isco wiilkii markaas Isco ahaa naadiga kubadda cagta Bulgrana waxay xiisanaysaa macnaha Iscohan waa wax markaas kooxda horta ka tirsanaa Madrid cajiib ahaa waqtigii markaas Superka isagu ahaa 2013 ilaa 2018 saddexdii Champions League oo ahaa dhaxaad isla markaana cajiib ahaa laakiin mashaakilku wuxuu la kulmay ninkan markii mustawigiisa hoos u dhac weyn laga dareemay xilciyaareedkan iyo kii ka horeeyay xitaa Solari marka la eego u soo bilowday ilaa hadda kor uma kicin ninka mustawigiisu marka waa si xumaanay naadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Barcelona ayaa doonaysa baa leeyahay wararkii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay la hadalhayay ayay kamid ahaayeen marka la eego طبعا labada naadi xidiga iskama iibsadaan oo si bilaasha ay xidigu kaga bixi karaa kooxda marka la xiriirinayaa laakiin
arrinta cajiibka waxay ahayd kadib markii toddobaadkan si weyn loo maqlay Isco ayaa Barcelona danaynaysa maantana war weyn oo kale in la qoray shabakadaas ay qorayso wakiilada dabcan wakiilada ninka markaasi Araujo oo heshiiskiisa 23 ku eegay Barcelona ayaa doonaysa bilaash inay ku qaadato macnaha Araujo ay doonayaan bilaash inay ku qaataan sida wararkii ugu dambeeyay la tilmaamay Araujo waa taqaanaan waa difaac ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Barcelona muhiim u ah udub dhaxaad u ah mustaqbalka ay hadda ku duulaysa ayaa lagu tilmaamaya laakiin waqtigan inay markaasi Real Madrid danayso waxa lagu sheegay inay tahay hadaf iclaami inay kaga hortagto arinta ku saabsan heshiiska la sheegayo Madrid inay ka qaadato Isco ama xitaa xidiga labada Madrid xitaa Barcelona haday qaadato muhiim uma aragto sababtoo ah ninkan isagu heshiiskiisa waa dhacaya bilaash buu ku baxaya laakiin cilaaqada labada dhinac u dhaxaysay iyo ay sii holcinaysaa iyo waliba classico markuu ciyaarayo waxyaabo badan oo sidaas ah laakiin uu ka tago naadi kale ku biiro dad badan kama qabayso markaasi naadiga kubadda cagta marka Araujo lafsadiisa waxa loo saadaalinaya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa leeyahay marka Araujo xitaa way danaynaysaa naadiga kubadda cagta Real Madrid malaha ka argudasho ay doonaysaa iyadoo inay sameeyso goosgooski maxaa kamid ah Manchester United oo kale Van de Beek waxay u sheegtay inuu sii joogayo Newcastle baa danaynaysaa United Fabian Ruiz bay danaynaysaa laba Republic baa tilmaamaysaa Manchester United waxay danaynaysaa Pochettino Labrisian baa tilmaamaysaa West Ham sidoo kale waxay danaynaysaa inay sii haysato Bowen isla markaana ay ka hortagto Liverpool ay aad u danaynaysaa Football Insider baa tilmaamaysaa sidoo kale caawa waxaa kamid ah Lille oo kale Botman bay doonayaan iyagu inay sii haystaan isla markaana hadiiba ay u maara waayaan lacag fiican bay ka doonayaan ninkan ay ka qaataan waliba waxay isku dayanaysan iibin Botman Newcastle aysan siin naadiga kubadda cagta Tottenham diyaar bay u tahay inay iibiso Ndombele Juventus ayaan loo bandhigayaa haddii ay doonayso waa ka Klopp wuxuu xiiseynaya markaasi in Origi uu sii haysto inta ka dhiman xilciyaareedka isla markaana ma doonayo January isaguna u diro xubinta wararkeena waa naga inta ninkii Arthur Melo iyo waliba Wijnaldumna Arsenal buu isagu qabanaya salaam